Darbiyada waaweyn ee Jaynaha waxaa lagu tiriyaa in ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu caansan Koonfurta Ameerika iyo dunida oo idil. Dalxiisayaal badan ayaa jecel in ay dalxiis ahaan u tagaan goobtaasi. Sidaas daraaddeed dadka ku nool gaar ahaan dadka ku nool Koonfurta Ameerika wax kama oga sababta ku kaliftay Jaynes ku kalifay in ay dhisaan darbigaas. Waxaa jiray in bulshada ku nooleed Jayna bartilmaameed u noqdeen reer baadiyayaal waqti fog ka hor. Inta badan marka laga hadlayo taariikhdii hore ee Jayna, bulshada Jaynes kuma aysan ahayn kuwo midaysan. Sidaas daraaddeed Sheikh Jaa-un oo geeriyooday 210 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise ayaa mideeyay guud ahaan dalkaasi. Markaa kadib wuxuu qorsheeyay in uu xal u keeno duulaanada kaga imaanayay jihada waqooyi ee fulinayeen dadkii reer baadiyaha ahaa. Sheikh Jaa-un wuxuu darbi ka dhisay Koonfurta China si ay uga hortagaan khatartaasi. Darbigani wuxuu fidsanaa ku dhawaad 200,000 oo meel, wuxuuna lahaa 25,000 oo taawar. Darbigani noocaani oo kale aad ayay u adkeed in la dhiso. Sidoo kale waxay u baahnaayeen rag badan oo shaqaalo ah oo ka qayb qaata dhisidda darbiga. Inkastoo la dhisay darbigan, xitaa ma aysan joogsan duulaamadii dadkii reer baadiyaha ahaa ay ku qaadi jireen dalkaasi. Waqtiyar kadib markii uu geeriyooday Sheikh Jaa-un, qabiil la oran jiray Hans ayaa kasoo tallaabay darbigii, balse boqor la oran jiray Huti oo awood ku haystay wadanka Jaynaha ayaa ka adkaaday qabiilkaas. Qarniyo kadib, Embaradoriyadii Mongolia oo kasoo hanaqaaday Koonfurta Jaynaha waxaana horkacayay Genghis Khan ayaa weeraray Jayna. Kublai Khan oo awoowo u ahaa Genghis Khan ayaa noqday boqorkii ugu horeeyay oo aan ahayn Jaynes ayaa la wareegay xukunka Jaynaha sanadka markuu ahaa 1279, balse muddo kadib dadjoogii Shiineeska ahaa ayaa ku kacay xukunkii Mongolia iyagoo afgambiyay boqorkii talada hayay. Si kastaba ha ahaatee, khatarta Mongoliyaanku waxay ahayd mid Jaynuhu mar waliba ay ka baqayeen, balse 1449 waxay gebi ahaanba burburiyeen xoogagii Jaynes iyagoo qabsaday boqortooyada. Jaynesku waxay bilaabeen inay dhisaan darbi cusub si Mongoliyaanku ugu hoobtaan, waxaana darbiga booqda dalxiisayaasha caalamka. Dhismaha wuxuu socday 200 sano isagoo qaybo ka mid ah laga dhisay dhulka hoostiisa. Inta ugu badan darbiga waxaa la dhisay iyadoo la adeegsanayo dhagaxaan, dhoobo iyo haraaga dhagxaan aad u adag. Taasina waa sababta uu waqti dheer u qaatay dhisidda darbigan, iyadoo aan loo kala harin dhismihiisa. Shaqaalaha, beeraleyda iyo dambiilayaasha waxaa lagu qasbay in ay ka qayb qaataan dhismaha darbiga. Ku dhawaad 1 milyan oo askar ah ayaa loo xilsaaray in ay kormeeraan darbigaasi. Dhismaha darbigan wuxuu soo gabagaboobay 1644. Isla sanadkaasi kacdoon ayaa ka dilaacay kaasi oo lagu afgambiyay boqorkii talada hayay. Raggii taabacsanaana boqorkaana waxay soo dhaweeyeen qabiil la oran jiray Manchu si ay uga qayb qaataan dejinta wadankaasi, taasi oo keentay in qabiilkaasi Shiinaha maamulaan ku dhawaad 100 sanadood. Inkastoo qabiilkani ay xukumayeen jihooyinka darbiga waqooyiga iyo koonfurtaba, ma aysan siin wax ihtimaam ah ku aadan qurxinta darbigaasi. Qaybo ka mid ah darbigaasi ayaa burburay dayactir la'aan, halka qaarna si buuxda loo waayay. Dalxiisayaasha maanta waxay booqdaan haraaga darbiga taariikhiga ah. Darbiga Jayna waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha la yaabka leh ee dunida laga helo, walow lagu fashilmay dantii laga lahaa in qabiiladii weerari jiray Jaynaha xilligaas uu ka hor istaago ujeedkoodu.